والله دي هورتا Somaliland intii aan joogay anigu ilaa 9 waan joogay dagaalay iyo nabadayn iyo waxyaabo badan iyo dib u dhis iyo waxba ka socday xisbiyo la sameeyay iyo marka inta waan soo joogo dhibaatooyinkeyga iyo maxaan ku iraahaa wixii talaabooyin la qaadayba meesha waan joogay muslaan u arko ninkii arkayay wixii markaa taagnaa iyo waxa maanta yaala isu qiyaasi kara ayuunba fahmaya talaabooyinka dadku qaadeen dadka aad u dadaalay shacabka aad u dadaalay ama dibadda ka yimaadaan ama gudaha joogaan waxa la igu yeedhay inaan jaamacadda oo burbur markaa joogtay burbur khilaafu ma ahayn teeda markaa waxay burbur dhaqaale oo deyn fara badan baa lagu yeeshay wixii la dhiganayay baa quality-giisii hoos u dhacay mushkiladahaas ayaa waxa la igu yeedhay taasay anigu markaa maadaama aan ogaa xaaladaha ay ku jirto really man jeclaynan galo waayo dee halkaasaan ka ogaa waxyaabaha yaalay kow laba intaa dalkan u shaqaynayo waxaan markaa taagnaaba inaan shaqo dibadda ah aan qorto oon eego dee carruurtii iyo dadkii u yar shaqeeyay waayo halkan volunteer baan ahaa imikana aan ahay to be frank waayo markii boardku yidhaaheen oo dhowr bilood ay daba socdeen ay yidhaahaan meeshaa qabo way buraysaa ayaan idhi mar haddaad dalka joogto dee waan diidayaa un ma soconaysee meesha gal ha adkaatee sidii baan ku galay guddoomiye ku noqon markii u horreysaba khalad baa meesha horta ay ku bilaabay aniga gelitaankayga horta too horreysa dee anigu professorna waan ahaa dhowr digriina waan haystaa PhD ku darsan professor jaamacadeed baan ahaa qualified baan ahay reerna ma yihi waxaan ahay on my own merit baan sameeyay meesha wax qaba baa lagu taaway ana la yeedhay iyaga yeed anu ma doono shaqada qualification-kaygana dee ma garanaysaa waa wax iska cad isagoo nin habara wale bulxamaa nin habara wale nin garxajisana qof garxajisana gudoomiye ku xigeenka koowaad la siiyo ka kalna araba la siiyo iyaga doodoodii baa waa boardkii sidii baana u dhacday waay taa anigoo iska liqay markiiba yani wax dhadhankeeguba aan qurux badnayn oo boardkii ma garanaysaa ilaaha kaalay wax ka meeshan ka qabee badbaadi oo waa jaamacaddii dalka oo iyagu dhoodu wixii qabyaaladu qaybiyey shaqada internationalka waxa iigu yaala bishii marka la isku wada geeyo 18,000 iyo dheeraad mushaaharadayda yani aan ka helayo inay tahay meeshan 1,200 ay leeyihiin because ma habar walbaan ama hebel baan qualified baan international ayaa sida igu qaadatay oo markaa aan qualification-kayga 1,800 anigoo haysta ayaa waxaan idhi ma iska tagtaa niyo ma iska soo shaqaysataa mise jaamacaddan aad u joogtaa ballan baad qaaday marka tii baan go'aansaday inaan jaamacaddii tago ballan qowlna waa iga dhacay waan tegey kooxdii markaa isoo hor dhigtay ayaan idhi ballan baan qaaday jaamacaddii sidaasaan ku tegey jaamacaddii sheekadu way dheer tahay waxa dhacday inaan 2 sannadood maanan ballan qaaday anigu dadku waxay moodaan inaan ka tegay oon cid uga tegey 2 sannadood baan ballan qaaday oo aan isku egayn boardka dadkii aan jaamacadda ugu tegayna waan ugu sheegay deanska oo dhan anigu 2 sannadood baan joogaya meeshaasaan nadiifinaya hagaajinaya jid wanaagsan ku ridaya kadib markaa anigu waan ka dhaqaaqay markaa waxaan madaxweyne ku-xigeenkii hore Axmed Yuusuf Yaasiin ayaan ku qanciyey oo iga aqbalay inaan jaamacadda sida Camuud oo kale sida Burco oo kale independent ay ahaato board baan u sameeyay